وقولوا بيربل استعمالية والله يا بكون عروي ويكون عذينا وراها هذا عود كانوا بحبك هذا هرجتنا إيمان ما يكونوا تدور تزكي معي جناح سوا حر بعض النتين والجناح سكتيدا برعو حودنا وحي قيمها كلمة صرد يبرو بي سلعين أدقاقا سايري تشوشية انت الماشي هيلاي دبل هاشا محاطة waxaa loo baahan yahay ganacsigii xorta ahaa ee madaxweynuhu ka ololeynayay ee xukuumadda ku ololeynaysa in la helo Soomaaliland ganacsatada hormarsiya hal loo daayo waxay ganacsatadu keento hal loo daayo haday hijina keento leer jaban baa loo baahan yahay dadku wuxuu u baahan yahay waxtar buu u baahan yahay xukuumaddu haday aanay waxtarayn waa hawlaheeda ma doonayno in cid koota loogu xiro in cid leeriyana doonimayno way noo sameeyeen shirkaduhu ganacsiga la shurtaago wax fiican maaha ganacsigana bulshada ku nool adeero inta aan burcaan noqono daan waraabowgi nagu kicin heelade leerka ganacsiga siidaya fataxa halkan oo ah hotel daale magaalada Burco waxa shir jiraayad ku qabtay qaar kamid ah odayaasha iyo waayeelkii wax garadka kala duwan ee gobolka Togdheer kuwaas oo hadla shirkadda Noor Energy ee magaalada Burco odayaashan iyo waayeelkan iyo wax garadkan ayaa sidoo kale fariin adag u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sheegay in shirkaddan uu sii deyn doono waqtigii mucaaradka ahaa marka uu soo baxo waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaanu halkan bulshada iyo xukuumadaba ugu jeedinaynaa inay shirkadda Al-Nuur ay tahay ganacsato Soomaaliland dara dastuurkeena iyo xukuumadii hore iyo tan maantaba waxay cadeeyeen inuu ganacsiga Soomaaliland xor yahay xorta awgeed baan uga hadlaynaa burco waxa uu dana wixii qiimaha ka dhimaya qiimaha leerku inuu jabaan jecelay shirkadaha soo cusub ee imanaya dalkana la soo dhaweeyo waxaanu leenahay madaxweyne burcana hoos u eg leerkeeda waa in hoos loo jabiyaa ganacsiguna cid xukunta ma jirto dastuurka qeexay in ganacsatadu ay xor tahay burcana wixii jaban baa u dana Soomaalidu waxay tiraahdaa umusha wixii u dana ilmaha u dana burca qiimaha jaban baa bulshada u dana waxaanu leenahay in qiimaha baac mushtarka la jabiyo shirkadda Al-Nuurna waa shirkad muwaadinada waa shirkad soo biirtay waa shirkad ummaddu u baahan tahay gobolka Togdheer u baahan tahay waxaanu leenahay soo dhawaada gamco furan baan idinku soo dhaweynaa haddaad shirkadda Al-Nuur war waxaan idinku maray dawladda waa maxay dawladda Hargeysa dawladda maxbaa ka cunarta miyaanay dad caadi ahayn dad waxaanu leenahay xukuumadda cusub ee Soomaaliland oo tii hore la hadalhayaadna miyaa lagu hadal haynaya war leerka naga sidaan naga fasax aniga gurigayga waa madow shan habeen madow buha shan bilood leerka waa la iga jaray reerku wuu iga maqnaa oo gulu biyarbal isticmaalaya wallahi ya baan عروي ويكون عذينا وراها هذا عود كانوا بحبك هذا هرجتنا إيمان ما يكونوا تدور تزكي معي جناح سوا حر بعض النتين والجناح سكتيدا قولي يا يجوا شنبرود هركي كم غير قلوب كايرو يبحوا أيام رمضان كانت مش هسال اللي يقول لي شركات دروا شركات جناحسي واي هاي ستا في جدي وحدي واي هاي ستا وردلك الدفاعية وحبها هي قرنمو إن لقاها لابو بهي إن الشعب كانوا تعذيبوا بهي إنه بدأ تغير تاع لدورابو بهي waxaanu ku sheegaynaa madaxweyne gudoomiyaanu ahayn waanu ku ololeynay waanu ku dooranay madaxweynaha ilaahay ka dhigay ilaahay baa ku soo saaray oo markay ilaahay ku soo saaray ma waxaad nolol tibaadna adeero inta aan burcaan noqono daan waraabowgi nagu kicin heelade leerka ganacsiga siidaya fataxa halkan waxaanu ka hadlaynaa kootada leerka ee uu xidhay madaxweynaha dalka jooga isaga uu xidhay cid kale oo xidhay ma jirto ولا وزير بان حري كرين ولا غيره بان حري كرين نكي جري وحو يري نبا أبار dhacday ayaa geeli ka baxo hal dhigadam buu ku mitira buu xiluli jiray buu wadwadi jiray roobku markuu daay sida maal ayuu laad ku kicisaashii haruubkii xiradaada alla biyuudha abaar xumaa ma guuleed ba waxaan ku leeyahay irro madaxweyne raggan waa raggaad kabaa ka kululays waa raggaad baabiisay waa raggaad 20 sanadood daba ordaysay inaad maanta leyr yar oo qura ku tacadidaa meesha ma taalo waad nagu tacadiyaysaa sanad iyo badhbay imanka nimankaasu yarara dhalinyaradii ee aan dhiigacabka ahayn ee u shaqaysta iskood iyo ummadana u shaqeeya sanad iyo badhbay silcayeen adigaagaa saa yidhi joojiya intaan meesha helayo دبل هاشا محاطة waxaa loo baahan yahay leer jaban waxaa loo baahan yahay ganacsigii xorta ahaa ee madaxweynuhu ka ololeynayay ee xukuumadda ku ololeynaysa in la helo in imika markay xukuumaddu meesha fadhiisatay
ciidan kaliya ku mashquulsan maaha inay dadka hoos u eegtaa bay ku wanaagsan tahay laydhkan cusub ee yimi ee sixirka jebinaya ha la sii daayo xukuumadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi hoggaanka ka yahay waxaanu ka eegaynay bulshada inay wax u faa'iideyso gaar ahaan arrimaha asaasiga ah sida laydhka biyaha waxbarashada caafimaadka waxa inay wax ka qabataa baanu doonaynay intay soo fadhiisato TV-ga inay taahdo shirkad baan u xidhnay bareefada kamaanaan yeelintaa kana yeelimayno bulshaduna ka yeelimayso war Soomaaliland ganacsatada hormarsiya ha loo daayo waxa ganacsatadu keento ha loo daayo hadday hijina keento laydh jaban baa loo baahan yahay dadku wuxuu u baahan yahay waxtar buu u baahan yahay xukuumaddu haddii aanay waxtarayn waa hawlaheedii laydh bilaash in laga helaaba laga doonayo xukuumadda maanta laakiin inay taahdo shirkad bareefadaan u xidhnay cidna ka yeelimayno haddii bulshada reer Burcaan nahay waxaanu leenahay si degdeg ah madaxweyne laydhka u soo fasax danyarta iyo dadka maanta bilaa dhaqaalaha in maanta la yiraahdo laydh baa cid loo xidhay lagaama eegayn madaxweyne waxaan u mahadnaqayaa xukuumaddan cusub ee Soomaaliland aad iyo aad waxyaabo badan bay qabatay intaa way ku amaanan tahay waxaanu jecelahay haddaanu nahay reer Togdheer haddaanu nahay in laydh jaban aanu helo shirkaddan cusub ee iminka tii horena way shaqaysay oo ku mahadsan tahay tan dambana waxa weeyaan dee irsaaqadeeday qabtaa oo tan irsaaqadeeda cuni mayso marka annagu waxaanu jecelahay in laydh aanu helo jaban aanu helo insha Allah bilmillaahi kariim waxaanu jecelahay inaan laydhka jaban aan noo soo deysaan berbere waa ogtihiin oo 20 muxuu ahaa senti ayuu 20 senti ayuu ka dhigay madaxweynuhu annaguna 20 senti baanu doonaynaa marka waxaanu doonaynaa madaxweyne inaad laydhkaas si dhaqsaan noogu sii deyso oo shirkanaha aad sida la yiri muxuu ahaa xor uu noqdo baayac mushtarku uu xor noqdo shirkadana waa shirkad dhalinyaro wadato oo dhalinyaradana ayayna niyad jabinin shirkadda laydhka shirkadda kale waa caawinaysaa meheradu way sacaawiyaan waxaanu doonaynaa qiimo jaban oo waxaanu doonaynaa laydhka oo waxaanu joogaynaa qiimo jaban oo waxbarashada waxaanu doonaynaa qiimo jaban oo caafimaadka ah intaba dawladdaanu ka rajaynaynay ma doonayno in cid koota loogu xidho in cid leeriyana dooni mayno way noo siman yihiin shirkaduhu waxaan u baahannahay dhammaantood inaannu la wada isticmaalo midna la jari maayo xadhgeedii la jari maayo midna dee waxaanu ku nidhi la soo xidhan maayo way noo siman yihin walbadayda gacmood shirkaddaa cusub ee laydhka ee anuur la yidhaahdo gobolku wuu u baahan yahay bulshaduna way u baahan tahay sharcigeedii oo dhammaystirana way haysataa ma doonayno cid caqabadaysa hadduu wasiir yahay iyo hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu suldaan yahay midna kama aqbalayno waa in naloo sii daayaa waa in naloo fasaxaa gobolkaa u baahan oo bulshadaa u baahan ganacsiga layshor taago wax fiican maaha ganacsigana bulshadaa ku nool waxaanu doonaynaa ganacsigu waa xore hadduu ganacsigu xor yahay in naloo sii daayo ganacsigaa horta ah shirkaddaa alnuure u dhan yahay sharcigeedu in la sii daayo oo shirkadu tartamaan oo shacabku uu helo wax leydh jaban leydhkaa jaban iyo noloshaa jabanna madaxweynaha waxaanu leenahay waxa kugu jirta dan adigana noo sii daa shirkadaha leydhka jaban maxamed saciid gaxnug telefishinka Cable